فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا النبي يا إمام الحرمين. dadweyne aad u fara badan ayaa habeennimadii xalay ahaa isugu yimid masjidka weyn ee Raqayda oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug si ay u xusaan habeenkii la dheelmiyay nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayeelay oo ku beegan 27 bisha Rajab ee sanadka Hijriga ahna munaasabad xuskeedu uu ku weyn yahay ummadda muslimka ah. سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين. النبي سلام عليك يا نبي يا ضاها بسم الله يا مصطفى بالله جدي يا رسول الله يا جوهر الدري. صلى الله على محمد حبيبي مصطفى زين الوجود طبيبي. محمد معراجه ثابت بالنص الحديث مع العبر. طل على من سرى ليلا إلى حرمين. munaasabadan oo ay muxaadarooyin deeniya ka jeediyeen culimada magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn waxay u dul istaageen qisadii dheereed ee habeenkaasi dhacday iyagoo dhammaan muslimiinta halka joogtay si weyn uga faa'iideysteen qisooyinkaas. Sheekh Cali Xaashi Faarax, Sheekh Xasan Aadan Kamacle iyo Macallin Cabdullaahi Sheekh Maxamed ayaa muslimiinta ku booriyay inay aad u bartaan qisooyinka mucjisaadka leh ee nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam la siiyay isagoo ahaa kii ugu khayrka badnaa ummadda. waxaana ay sheegeen in qof walba oo muslima laga rabo inuu weyneeyo habeenada sidan oo kale ugu weyn islaamka gudihiisa sida mawliidka oo ah habeenkii uu dhashay nabigeena nabad iyo naxariis korkiisa ee bahayeelay Laylatul Israa wal Mi'raaj oo ah habeenkan Laylatul Qadriga iyo munaasabadaha kale ee aadka qiimaha ugu leh shicaarka islaamka. waxaanu joognaa caawa Laylatul Israa wal Mi'raaj habeenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu dheelmiyay oo koriyay. isruhu waa rihla ardiya waa rihladii iyo geedigii nabigu iyo safarkii uu ka galay من المسجد الحرام أو مكة إلى المسجد الأقصى أو فلسطين أو تجي. رحلة اللبادنا وحوي رحلة سماوية بيت المقدس وكتجي إلى السماوات العلى إلى قاب قوسين أو أدنى هل كاس إلى أو جاري عوا هبين وين واتي علماء نو شيغيسي أولنا لو شيغي جيري waxaa la yiri israha ruuxu inkira aruu ka gaaloobaya ruuxi inkira oo israha ira ma jiro gaal cadaystay way waayo aayada quraanka hal aayadaha quraanka ah mutawaatir ahayn lama arko حديث لكن قارنا متواتر وي قار مشهور وي قار حديث الأحاد وي آيات سورة الإسراء يكون بالله قف كيره هذا وإنكره دينتي بنام كتشوغا إنه كسون نغني إنك لا وربته مركز كذب. الإسراء والمعراج الله وضع قيبوضة يكوكوانتها إلا بدو دواء وحي كمديهين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سيئي وأن لسوكو بكرناء ترضى بدنا معجزات النبي أنبياء كهريد معجزوين بالسين شري لكن وحي هايين نبي قال لسيئي مركا أو دينتو وقوم كيساس أو بابا قوم كقدم بيا مقاري شرينين رسولك كلا
waxaa lala soo diri jiray rasuul kale iyo mucjizaadkiisa. Sheekh Cali Cismaan oo ka mid ah culimada munaasabadan ka qayb gashay ayaa halkaasi ka jeediyay isna wacdi isagoo muslimiinta oo idil ugu duceeyay inuu Ilaahay kor uga qaado dhibaatada haysata. waxaan joognaa habeen qiimo badan waxaa la yiraahdaa habeen soo mara nabiga calayhi salaatu wasalaam waa habeenkii uu qiimaha badnaa oo Ilaahiisa uu ku soo arkay bi'ayni ra'si nabiga habeenkii Ilaahay soo arkay la soo kooday waxaa lagu sheegaa habeenka 27 bisha Rajab oo caawa aan joogno waxa weeye marka habeen qiimo badan nabiga aagiisa waliba waxa la yiraahdaa waa habeenka uu qiimaha badan laakiin annaga markii la fiirsho ummadda Nabi Maxamed waxa uu qiimo badan habeenka uu nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam tacdiiminta marka habeenkan oo kale waa wax qiimo badan waliba waxa weeye habeenkan habeen la soo farad yeelay salaada hadda annagu aan haysano oo waxa weeye ka khayr badan kana ajir badan salaadihii ummadii hore la siiyay salaadaas habeenkan caawa la soo farad yeelay. habeenka 27 ee bisha Rajab ee sanadka Hijriga waa habeenkii la dhilmiyay nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee loona soo dhiibay waajibaadka shanta salaadood ee aan tukano waana habeen weyn.